Kusoo dhawow daawade Media xubinteena maanta ee Top 5 oo aynu ku soo qaadan doono 5 wadan ee ugu dhaqaalaha badan adduunka. Waxaanu ka bilaabi doonaa lambarka koowaad ilaa aynu ka gaarno lambarka 5. Kaalinta koowaad ayaa waxaynu galeynay dalweynaha Mareykanka. Mareykanka ayaa ah wadanka adduunka ugu dhaqaalaha badan. Tan iyo 1871 dalweynaha Mareykanka ayaa ahaa wadankan adduunka ugu dhaqaalaha badan. Xaddiga dhaqaalaha Mareykanka ayaa ahaa 21.58 trilyan sanadkii dhammaaday ee 2019, isagoo lagu wado inuu gaadho 22.32 trilyan sida ay saadaalaha dhaqaaluhu sheegayaan. Mareykanka ayaa lagu yeedhaa economic superpower sababtoo ah wax gacan ugu jira ku dhawaad rubuc dhaqaalaha adduunka. Mareykanka ayaa wuxuu hoggaanka u hayaa dhinacyo badan sida infrastructure-ka, tiknoolajiyadda, wuxuuna kaloo leeyahay kheyraad dabiici oo fara badan. Saadaalaha ayaa tilmaamaya in China uu dhaafi doono Mareykanka oo noqon doono hormuudka dhaqaalaha adduunka dhinac walba. Hase ahaatee, USA ayaa weli difaacanaysa booska koowaad iyadoo ku dhameysatay kaalinta koowaad sanadkii 2019 xaddi dhan 21.5 trilyan. Kaalinta labaad dalweynaha China. China ayaa noqonaya wadanka labaad ee adduunka ugu dhaqaalaha badan, isagoo nominal GDP-giisu dhan yahay 14.14 trilyan. China ayaa wuxuu ku jiray xawli koritaan rubuc qarnigii ugu dambeeyay markuu jabiyay xayndaabkii suuqa xirxirnaa, taasoo ka dhigtay xarunta sinaacadka, warshadaha iyo dhoofinta adduunka. China ayaa lagu yeedhaa warshadda adduunka oo hoy u noqotay shirkadaha sinaacadka weyn iyo bardhoofin mug leh. Si kastaba ha ahaatee, sanadahan dambe waxaa koboc weyn ka sameeyay dhanka adeegyada amba service-ka waxaa loo yaqaano service sector-ka. Isku darka adeeg bixinta iyo warshadaha ayaa sii karaarisay kororka dhaqaalaha China. Kaalinta saddexaad dalka Japan. Japan ayaa noqonaya wadanka saddexaad ee adduunka ugu dhaqaalaha badan, isaga oo GDP nominalkiisu dhan yahay 5.15 trilyan. Japan ayaa wadanka saddexaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka, isagoo GDP-ga wadankaasi gaadhay 5 trilyan sanadkii 2019. Dhaqaale xumadii 2008 ayaa saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalaha wadankaas, taas oo muddo la ildarnaa. Markii uu soo kabashada bilaabayna waxaa ku habsatay masiibooyin dabiici ah iyo dhul-gariiro khasaare badan u geystay. Hase ahaatee, Japan dhaqaalihiisii dib ayuu u soo kabtay. Kaalinta afraad dalka Jarmalka. Jarmalka ayaa noqonaya wadanka afraad ee adduunka ugu dhaqaalaha badan, isagoo uu dhan yahay nominal GDP-giisu 3.86. Germany maaha kaliya wadanka ugu dhaqaalaha badan Yurub, balse waa mid ka mid ah wadamada ugu dhaqaalaha xooggan adduunka, isagoo kaalinta afraad kaga jira wadamada ugu dhaqaalaha badan adduunka dhinac walba. Sidoo kale, kaalinta shanaad ayaa waxaa gelaya dalka India. India ayaa nominal GDP-geedu dhan yahay 2.94. India ayaa ah dhaqaalaha ugu koritaanka badan ee trilyan-ka dhaafsan. Wadankan ay tirada dadkiisu kor u dhaafayso bilyanka ayaa waxa uu sameeyay koboc dhaqaale sanadadii ugu dambeeyay. Kadib markii uu wax ka beddelay siyaasadihiisa, ayaa wadankan wuxuu noqonayaa wadan aad dhaqaalihiisu u badan yahay, wuxuuna sanadadii ugu dambeeyay ka sare maray wadamada UK iyo France. Waad mahadsantahay daawade. Fadlan subscribe garee si aad noogu xidhnaato. Haddii aad barnaamijkan ka heshayna like saar, isla markaana share garee si aad noo dhiirigeliso. Waad mahadsantahay.